Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya wararkii ugu dambeeyey 200 oo xubnood oo isku diyaarinaya in ay isdhiibaan iyo xiisad dagaal oo ka qaraxday aagga ay ku sugan yihiin militariga Soomaaliya oo howlgalka xoreynta gaarsiiyey goobtii dhimashada. Waxaan idin haynaa xogihii ugu dambeeyey iyo halka saaka lagu kala sugan yahay. Garxajis waxay ku wajahan tahay laba magaalo oo muhiim ah oo ay doonayso inay gacanta ku dhigto. SSC godoomin ayay kusoo rogtay ciidanka saldhigga Gooja Cadde. Waxaan idiin soo gudbin doonaa qorshaha ay u dejiyeen sidii ay u qabsan lahaayeen hubka culus iyo gaadiidka dagaalka iyo weliba tillaabooyin degdeg ah oo lagu soo afjarayo saldhiggaasi ku yaala duleedka magaalada Laascaanood ee duqeymaha geysta. Wararkii ugu dambeeyey waxaan idiin soo gudbin doonaa magaalada Hargeysa oo ay kusoo ilaadeen kulamadii xal u raadinta xiisadda buurta gacan libaax guuldareystay iyo sidoo kale madaxweynaha oo ku dhawaaqay inuu sharciga hor keenayo kooxdii ka dambeysay dilka askartii dhowaan lagu laayay aagga Goodayar. Muuqaalka shargaree qaybta hoosena aragtidaada noogu reebo ku xirnoo wararka dhambaalka wararka aanu ku bilowna wararka dhambaalka wararka sida xogaha aad ku maqlayseen. Waxaa maanta godoomin weyn wajahaya ciidanka militariga Somaliland si gacanta looga dhigo hubka iyo gaadiidka dagaalka ay wataan, iyadoo weliba taasi ay horseedi karto inuu dhaco dagaal nafurnimo ah, horseedi karana in Gooja Cadde daqiiqado kooban lagu soo afjaro. Hogaamiyaha SSC Firdhiya ayaa waxauu saacadihii ugu dambeeyey go-aan degdeg ah ku bixiyey in la xiro wadada galbeedka ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, iyadoo weliba gacanta lagu dhigayo deegaano badan oo ka tirsan gobolka hoostaga magaalooyinka Ari Cadeeye iyo sidoo kale Yagoori, iyadoo weliba jimcadu ay sameyneyso isballaarintii ugu xooga badnayd isla markaana lagu qabsanayo dhammaan deegaanada muhiimka u ah isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale qaadista dhaawacyada ee dhinaca militariga Somaliland sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xogaga militariga iyo sidoo kale kuwa SSC. Wararka ayaa xaqiijinaya in ka badan 300 askari oo mitidiin ay tegayso jiidaasi galbeedka, iyagoo weliba dhufaysyo adag ka samaysan doona, sidoo kalena aan ogolaan doonin in la dulmaro. Waxayna wataan tiro gaadiid dagaal ah oo ay taangiyo ka mid yihiin, taasoo gacan ka geysanaysa in meesha ay jilbaha dhigtaan aan laga soo agdhawaanin. Tirada ciidankan marka laga soo tago waxaa intaasi sii dheer in uu hogaamiyuhu amar degdeg ah ku bixiyey in afarta dhinac iyo geesahaba laga soo weeraro magaalada saldhigga duleedkeeda ku yaala ee Gooja Cadde, iyadoo weliba si rasmi ah looga takhalusayo aagga markaasi uu ka horeeyo islamarkaana loogu sii dhowaanayo godka. Waxaa intaasi sii dheer in marka hore la laalayo wadada sahayda iyo sidoo kale saadka iyo dhaawacyadu ay maraan, markaas oo ay tahay in ciidanku ay iskaga cararaan aaggaasi. Mahad Cabaashe iyo kooxdiisa ku sugan wadada galbeedka ee isku xirta Burco iyo sidoo kale Laascaanood ayaa xoguhu tilmaamayaan in saaka ay sameynayaan isdifaaci dagaal, iyadoo weliba weerar ku qaadaya saldhigga SSC ay ka sameysanayso iyo sidoo kale ciidanka ku sii jeeda gudaha galbeedka, kuwaasoo doonaya inay ka tilaabaan wadada laamiga ah. Warar aan helayna ayaa sheegaya in ciidan culus oo iskugu jira maleeshiyaad ka socda Habar Jeclo iyo sidoo kale Mahad Cabaashe oo wax isku darsaday ay dib u weerarayaan ciidamada. Militariga Soomaaliyana waxa uu dul taagan yahay godkii dhimashada, iyadoo weliba saakay wararka la helaya ay tilmaamayaan in xaaladdu ay ka adag tahay sidii hore. In ka badan 200 oo xubnood ayaa waxay qarka u saaran yihiin inay isdhiibaan, balse xiisad dagaal ayaa ka qaraxday deegaankoodii kadib markii xubnahaasi looga shakiyey in ay mirmir iyo laba iyo weliba koox ay u goosan karaan. Sida ay noo xaqiijiyeen ilaa-wareedyo lagu kalsoon yahay, waxaa 200 oo xubnood xogtooda helay qaar ka mid ah ilaha kala duwan ee sirdoonka ururka ka dagaalamaya bariga gobolka Galgaduud, taasoo keentay in loo diido inay halkaa ka ruqaansadaan, iyadoo weliba xogahan helna ay muujinayaan in labada dhinac isku hayaan jooga iyo joogi mayno, maadaama howlgalladii ay soo gudbeen dhulkii la filayay inay ku hakadaan. Ayaa waxaa bilaabatay cabsi weyn oo ku aadan
in ciidankaasi ay gudaha usii geli karaan magaalooyinka kala duwan ee bariga gobolka Galgaduud ee xilligan difaacyada u ah kooxda, islamarkaana ay gabaadyada ka dhiganayaan, iyagoo weliba ka walwal qaba in maanta gacantooda laga saaro qeybo kale oo ka mid ah gobolka. Ciidanka militariga ayaa hore ula wareegay deegaanka Ceel Qorof, waxay sidoo kale la wareegeen saacadihii ugu dambeeyayba Caws Weyn oo isaguna ka mid ah magaalooyinka muhiimka ah ee ka tirsan gobolka Galgaduud, gaar ahaan daanta bari ee xoreyntu ay ku socoto. Waxaa intaas sii dheer in miinooyin lagu xiray dhulka la safayna goob walba oo la mari karana ay kusii xireen miinooyin kala duwan si halka ay ugu halaagsamaan gaadiidka dagaalka iyo sidoo kale askarta wadata. Balse ciidanka militariga Soomaaliya ayaa wata agabka miino baarista iyo sidoo kale saraakiil kale oo horsocota ciidamada, kuwaasoo miinooyin badan ka saaray jidadka, islamarkaana doonaya inay sii wadaan qorshahooda howlgalka. War la helaya ayaa muujinaya in khilaafka ururka dhexdiisa ka qarxay markan uu qarka u saaran yahay in koox la isku dhiibo, islamarkaana qofba halka uu joogo uu kaga baxsado meesha ugu dhow ee uu iskaga dhiibi karo gacanta ciidanka Soomaaliya, si uu kaga badbaado howlgalka culus ee kusii jeeda deegaanadaasi, islamarkaana halista gelinaya nolosha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan xubnaha qaarkood. Xogaan helna ayaa dhinaca kale waxay tilmaamaysaa in ciidan aroorsi xooggan weli oo ka soconaya deegaanada bariga, iyadoo weliba la diyaarinayo in ka badan 10,000 oo xubnood, kuwaas oo ururka difaaca islamarkaana ka hortaga ciidanka militariga Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ee wada socda. Dhinaca kale haddii aanu eegnana, madaxweyne xasan ayaa saaka la filayaa inuu qaado ku dhawaaqista go'aano adag oo ku aadan howlgalka xoreynta ee ka socda dalka. Jabhadda Garxaajis ayaa maanta ku wajahan 2 magaalo oo muhiim ah oo ay dooneyso inay si rasmi ah u xaqiijiso gacan ku hayntooda, waxayna dooneysaa inay gacanta ku dhigto magaalada Burco oo ka dhow aagga ay jabhadda Gacan Libaax ay degan tahay, iyadoo weliba sidoo kale isku ballaarinaya ilaa aagga magaalada Og. Waxayna sidoo kale doonayaan in ay mar uun gacanta ku dhigaan magaalada muhiimka ee dekedda ee Berbera, halkaasoo marka hore ay ka xirayaan jidadka iyo wadooyinka la marayo. Waxaana saacadihii ugu dambeeyayna loo xaqiijiyay in howlgallada ciidan ee ka bilowday aagga Garxaajis ay yihiin kuwo si weyn u dhaawacaya una saameynaya qorshe walba oo uu lahaa madaxweyne muuse. Sida ay noo xaqiijiyeen xoogagga jabhadda, waxay maanta weerar culus ku ekeynayaan haddii ay dareemaan dhaqdhaqaaq culays weli sii soconaya magaalooyinka kala duwan ee Burco iyo Hargeysa, waxaana suurtagal ah in magaalada Burco ay faraha iskula tagaan xoogagga habar jeclo ayaguna diyaargarow culus ku jiray saacadihii ugu dambeeyay, islamarkaana si gaar ah isku abaabulay. Muuqaalka sheergareey oo like saar, qaybta hoosena aragtidaada noogu reeb. Dhinaca kalena aanu eegne, waxaa isi soo taraya iyadana tillaabooyinka la qaadayo ee ku wajahan in kulamadii ka socday xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa ay guud ahaanba guuldareysteen, kadib markii la isku fahmi waayay habka loo jihaynayo xaaladda colaadeed ee ka jirta aaggaasi iyo qaabka loo qabanayo shirarka iyo kulamada kala duwan ee ay leeyihiin xubnaha ay ka midka yihiin hoggaanka sare ee madaxtooyada iyo weliba saaxiibadii, ayaa waxa isi soo tarayaan in ay joojin karaan ololaha loogu jiro in dhinacyadu ay sameeyaan kambeyn siyaasadeed iyo sidoo kale mid bulsho oo codka lagu heli karayo, islamarkaana looga saari karo meesha madmadowga iyo shakiga ay qabaan dadka. Sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahana, waxaa isi soo taraya maanta in madaxweyne muuse dhinaciisa uu sameeyo weerar ka hortaga, islamarkaana lagu qaado aagga Go'da Yar, halkaas oo sidoo kale ay ka dhaqaaqi doonaan ciidanka isku dar. Waxaana intaasi ku sii jira islamarkaana la socda in weli Somalilan ay taageero caalamiga ka raadineyso wadamada gobolka, gaar ahaan wadanka Faransiiska ayaa mar kale loo gudbiyey baaqa caalami ah oo ku socda, islamarkaana waxaa sidoo kale lasoo duubay muuqaalo muujinaya in kooxda buuraleyda Soomaaliya ku jirta ee dhinaca gobolka bari ay isku fiidisay buuraleyda Somalilan, islamarkaana ay khatar weyn ku tahay inay qabsato magaalada Hargeysa, iyadoo weliba sii wadi doonto khatartooda markaas kadibna
Dowladda Faransiiska ayaa xoguhu tilmaamayaan inay bilowday dadaallo ay ku hubinayso arrintaasi, waxaana gaadiidka cirka iyo sidoo kale diyaaradaha oo ka kacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Djibouti ay si toos ah u gaareen hawada magaalooyinka Laascaanood, Buurta Gacan Libaax iyo goobo kale. Gacan Libaax oo ay ka weyday waxba waa uga jeedi weyday, sidoo kalese waxay tagtay jidda magaalada Laascaanood, halkaas oo ay iska horfadhiyaan ciidamada labada dhinac. Muuqaalka sheer garow like saar qaybta hoose aragtida nagu reeba ku xirnaa wararka dhambaalka wararka nabadgelyo.